habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay Cabdiraxmaan Bidhaan qodobada wararka ugu waaweyn waxay duufaanka Florence ayaa soo caga dhigtay xeebaha bari ee Mareykanka iyadoo laga digayo fatahaado halis ah warbixin dheeraad ayaan idinka haynaa duufaanka wararka kalena waxaa kamid ah iyadoo Ruushka iyo Shiinuhu ay soo bandhigeen cududooda military waxaan isweydiinaynaa waxa xidhiidhkooda si adkaanaya caalamka uga dhigan yahay wasiirada caafimaadka ee dawladaha xubnaha ka urur goboleedka IGAD ayaa maanta waxay magaalada Gaarisa ka bilaabeen ololaha talaalka dabaysha toddobaadkan iyo barnaamijka Click ee tiknoolajiyada waxaan ku eegnaa tiknoolajiyada tababarka dhakhaatiirtu ma sidan bay u eegtay kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa London caawiya caalamka caawa laba halisood oo hawada ka dhashay ayaa socda iyadoo duufaanka Florence uu soo caga dhigtay xeebaha bari ee Mareykanka ayaa dhanka kalena dabaysha culus ee typhoonku ay ku jihaysan tahay Philippines iyadoo 5 milyan oo qof ay halkaasi ku nool yihiin oo ay marayso haddii aynu eegno muuqaaladan ugu dambeeyay oo ka imanaya magaalo xeebeedka New Bern ee gobolka North Carolina ayaa aynu ka dheehan karaa iyadoo uu halkaasi u jiirayo boqolaal qof ayaa weli sugaya in la badbaadiyo digniin baa la siiyay daadgurayna 1 milyan oo qof muuqaalada dareenka leh ee ka soo horeeya duufaanta Florence ayaa soo gaaray xeebta North Carolina roob iyo dabeel ayaa ku dhuftay jasiiradaha ugu horeeyay waxayna u sii gudbeen Atlanta kadibna way sii socdeen duufaanta xooggan ee sida gaabiska ku socota hadda waa fiday waxayna khatar ku tahay xeebta koonfur bari Mareykanka laga soo bilaabo Carolina ilaa Georgia waxaa jira cabsi laga qabo in malaayiin ay koronto la'aan noqdaan dhammaan xeebaha koonfureed ee Mareykanka iyadoo ay xaqiiqo noqotay khatarta saddex laaban ee xoogga dabeesha duufaanta iyo daadkaba in badan ayaa ka qaxay guryahooda iyagoo gabaad ka doonaya xarumaha dadka ay u soo qaxeen sida dadka nugul ee waayeelka iyo carruurta inta badan dadka jooga meelaha loo soo qaxay waa ka baxeen kuwa ayaana go'aansaday inay duufaanta daawadaan qoyskayga iyo dhammaan dadkii kaleba way baxeen marka laga reebo aniga iyo xaaskayga hadda waxaannu diyaarinaynaa koox halkan ka shaqaysa dhibaatada kadib waa hawl qaadan karta toddobaadyo sida ay ku socoto duufaanta lama xaqiijisan karo balse waxyeelada socda oo ay xeebta ku hayso dabeesha iyo biyaha ayaa xoogaysanaya iyadoo haddaba Mareykanku la daaladhacayo duufaanka Florence ayaa dabaylo kale ay ku jihaysan yihiin xagga qaaradda Asia marka aynu eegno dalkaasi Philippines waxaana balladkeedu yahay 900 kilomitir waxaana lagu yeeray duufaan halisa oo jaraysa 250 kilomitir saacadiiba haddii aynu eegno muuqaalada ugu dambeeyay waxaynu arkaynaa in dabaylaha typhoonka la filayo inay jiiraan cidhifka waqooyiga jasiiradaasi Luzon dadka ayaa diyaar garoobaya kubanaan qof ayaa la amray inay ka baxaan guryahooda duulimaadyadii waa la joojiyay iskuuladii waa la xidhay iyadoo ciidamada qalabka sidana heegan la galiyay wariyaha iyaga Howard Johnson ayaa jooga halkaasi oo warbixinta soo diray muuqaalada dareenka leh ee ka soo horeeya duufaanta Florence ayaa soo gaaray xeebta North Carolina roob iyo dabeel ayaa ku dhuftay jasiiradaha ugu horeeyay waxayna u sii gudbeen Atlanta kadibna way sii socdeen duufaanta xooggan ee sida gaabiska ku socota hadda waa fiday waxayna khatar ku tahay xeebta koonfur bari Mareykanka laga soo bilaabo Carolina ilaa Georgia waxaa jira cabsi laga qabo in malaayiin ay koronto la'aan noqdaan dhammaan xeebaha koonfureed ee Mareykanka iyadoo ay xaqiiqo noqotay khatarta saddex laaban ee xoogga dabeesha duufaanta iyo daadkaba in badan ayaa ka qaxay guryahooda iyagoo gabaad ka doonaya xarumaha dadka ay u soo qaxeen sida dadka nugul ee waayeelka iyo carruurta inta badan dadka jooga meelaha loo soo qaxay waa ka baxeen kuwa ayaana go'aansaday inay duufaanta daawadaan qoyskayga iyo dhammaan dadkii kaleba way baxeen marka laga reebo aniga iyo xaaskayga hadda waxaannu diyaarinaynaa koox halkan ka shaqaysa dhibaatada kadib waa hawl qaadan karta toddobaadyo sida ay ku socoto duufaanta lama xaqiijisan karo balse waxyeelada socda oo ay xeebta ku hayso dabeesha iyo biyaha ayaa xoogaysanaya
waan idinka raali gelinayaa muuqaalkaasi North Carolina oo 2 jeer inagu soo laabtay raali ahaada ciidamada Ruushka ayaa dowlatus military kii ugu weynaa dalkaasi ee ka dhaca tan iyo dagaalkii qabooba waxa ku qabteen gobolka Siberia Shiinaha ayaa taageeradiisa ku biiriyay wuxuuna soo diray in ka badan 3,000 oo askari oo halkaasi iyadoo la arkayo inuu hadaba sii xoogaysanay xiriirka dhaqaale iyo kan siyaasadeed ee labadaasi dal ayaa Cismaan Cabdi Xasan eegaya buuraha dushooda ayay ka soo socdaan Ruushka waa dholatuskii ugu weynaa ee Ruushku sameeyaan ilaa dagaalkii qabooba 3 kameel qayb kamid ah ciidamada Ruushka ayaa ka qayb galaya sida ay Moscow sheegtay waxaana ku heliyay ciidamo ka socda Shiinaha cadaadiska ka imaanaya galbeedka iyo Ruushka ayaa bariga ku kordhaya ciidamada ayaa nagu marti qaaday si aan u daawano dholatuskan ujeedka dholatuskan military ee bariga fog ee Ruushka waa in la hubiyo sida ay ciidamada diyaar u yihiin waa dholatus difaac sida ay Moscow sheegtay khubarada qaar ayaa ka shakisan in Ruushku kordhiyeen tirada ciidamada balse muran kama taagna bandhigan awood annaga oo kaliya ma ahayn kuwa daawanaya Vladimir Putin ayaa la socday dholatuskan kadibna wuxuu ballan qaaday in ciidamada hubaysan ee Ruushka uu ka dhigayo kuwa sidan ka sii xoogan Ruushku waa wadan nabadda jecel qorshahana nooguma jirto inaanu cidna ku duulno laakiinse waxa waajib naga saaran yahay inaanu dalkayga hooyo u noqono diyaar inaanu difaacno Shiinuhu qayb ayay ka yihiin madaxweyne Putin iyo madaxweyne Xi Jinping si saaxiibtinimo leh ayay wax u wada kariyeen si ay u dheelatiraan awoodda galbeedka Moscow waxay u aragtaa xiriirka dhow ee ay Beijing la yeelanayso in ay kaga badbaadayso cunaqabataynta reer galbeedka Ruushku waxay baadi doonayeen inay dhex galaan reer galbeed hadda waxaasi way dhammaadeen waxayna Ruushku doonayaan saaxiib xoog badan oo siin kara farsamo suuqyo cusub iyo maalgelin cusub kaasina waa Shiinaha Ruushku si tartiib ah ayay ugu wareegayaan Shiinaha iyagoo iska dhagatiraya sawirka guud waxaan qabaa inay khatar aad tahay iyo mid aragti gaaban balse xiriirkan curdanka ah ma ku dhammaan karaa in Shiinaha la jiito waxaa la go'aamiyey in aysan taasi dhicin Moscow waxay isu aragtaa dal leh awood weyn oo military bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka goos adeegay kadib markii banka dhexe kor u qaaday lacagta dulsaarka ee amaahda oo laga dhigay 24% isagoo sheegay inuu dhowri doono bal natiijada ka soo baxda waxaana uu sheegay in cadaadiska caalamiga ah ee lacagtooda liirada ah lagu hayaa uu yahay dil dhaqaale madaxweyne Trump ayaa sheegay in Washington aan wax cadaadis saarayn si ay heshiis ganacsi ula galaan bulshada Shiinaha hadalkan ayaa imanaya iyadoo labada dhinac ay u ballansan yihiin kulan kale si looga hortago in Mareykanku cashuuro cusub ku soo rogo alaabta Shiinaha ayaa soo dhaweeyay martiqaadka wada hadallada labada Kuuriya ayaa furtay xafiis xagga xiriirka ah oo ku yaala dhulka aad ay ciidamadoodu isugu hor fadhiyaan ee xadka xafiiska ayaa dhanka Kuuriyada waqooyi laga furay magaalada Kisong waxaanu noqon doonaa meel isku xidhay isgaarsiinta labada dal waa sidii safaarad ay wada leeyihiin labada dal taasi oo muujinaysa xiriirkooda ka soo reynaya warsan ayaa laga soo sheegayaa Tanzania boqolaal caruur ah ayaa ka faa'iideystay adeega cusub ee laga furay qaybta caruurta cusbitaalka ee Mahopoli oo ku taala Dar es Salaam ku dhawaad hal sano ka hor ayaa halkaasi la furay waxayna hoos u dhac weyn ku keentay waqtigii dheeraa ee ay caruurtu sugi jiray qalliinka waxa horumarka inooga waramaya Qaalib Xasan Baaruud halkan caruurta bukaanka lagu qalayaa waa cusbitaalka Muhimbili miiska qalliinkuna waa mid u gaara caruurta waana midka kaliya ee ku yaala Tanzania ugu yaraan 10 ilmood oo bukaana ayaa lagu daaweeyaa maalin kasta dhakhaatiirtuna waxay sheegayaan inaysan badbaadin nolosha caruurta oo kaliya balse uu qalliinkani caruurta qaar fursad u siiyo nolol dheer caruur badan ayaa dhashay iyagoo xubnaha jirkooda cillada ku leh kuwaasi oo qalliin lagu hagaajin karo halkii caruurtu ugu kori lahayd xanuun iyo nolol dhib ah hadda waxay heli karaan nolol caadi ah way shaqayn karaan dhaqaalaha dalkooday wax ku biirin karaan ubadka halkan jooga badankoodu waxay dhasheen iyaga oo kaadida iyo saxaradu ku dheggan tahay ama kaliyaha wax ka qaba
carruurtu ma aha kuwa keliya ee ka faa'iiday qolalka cusub ee qalliinka. Dhakhaatiirta cusub ayaa sheegaya inay wax badan ku soo kordhiyeen. waxaan qalliinada samayn jirnay 3 jeer toddobaadkii iyadoo ay ku jiraan dad waaweyn balse hadda waxaynu mahadinaynaa in aan helnay qol u gaar ah qalliinka carruurta oo keliya waxaana awood u leenahay in aan qalliin samayno maalin walba. Waalidka dhallaankan ayaa ku farxa marka ay arkaan sida carruurtoodu ugu soo ladnaanayso daryeelka iyo daawada la siiyo. maanta aad baan u faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay in wiilkayga qalliin lagu sameeyey uuna soo kabanayo haatan haddii aad furto wadnahayga waxaad arki doontaa sida aan u faraxsanahay. wakhtigan xaadirka ah Tansaaniya iyo Uganda oo keliya ayaa xarumahan kale waddamada bariga Afrika. KIDOR waa hay'ad samafal oo British ah waxayna ku tala jirtaa inay cisbitaalkan oo kale ka hirgeliso dalal kale oo Afrikaan ah 2 sano ee soo socda. mar walba waxaad nagala socon kartaa BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaas oo aad ka heli karto muuqaallo falanqeyno dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararka ugu dambeeya Soomaaliya iyo caalamka nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram. xusuusnow wararka ugu dambeeya BBC Somalina waxaad ka heli kartaa bbc.com/somali. weli waxaa inoo soo socda qaybta dambe ee barnaamijka caawiya caalamka ku jira wasiirada caafimaadka ee urur goboleedka IGAD oo dabaysha talaalkeeda bilaabay. weli waxaad daawanaysaan caawiya caalamka balaan idin xusuusiyo qodobada caawa wararka ugu waaweyn. duufaanka Florence ayaa soo caga dhigtay xeebaha bari ee Mareykanka iyadoo laga digayo fatahaado halisa. toddobaadkani iyo barnaamijka Click ee tiknoolajiyadana waxaanu idinku haynaa tiknoolajiyada tababarka dhakhaatiirta tolow ma sidan bay u eg tahay. wasiirada caafimaadka ee dawladaha xubnaha ka urur goboleedka IGAD ayaa maanta waxay magaalada Garissa ee dalka Kenya kaga wada hadlayaan ololaha talaalka dabaysha oo guud ahaan la gaarsiin doono magaalooyinka geeska iyo bariga Afrika. Suhayba Badqas wariyahayaga ayaa Nairobi khadka toos kaga jirta. Suhayba soo dhawow maxaa ugu dambeeyay Suhayba? waad mahadsantahay bidano maanta shirkaasi waxaa ku kulmay wasiirada caafimaadka ee urur goboleedka IGAD waxaana kamid ahayd sidoo kale wasiirada caafimaadka ee dalka Soomaaliya marka maadaama lagu qabtay barnaamijkan magaalada Garissa iyadoo aynu ogsoonahay in Garissa ay tahay magaalo xuduud la ah dalal badan marka waxa laga wada hadlayay arrimaha ku saabsan dabaysha bidano. maxaa shirkan markaas Suhayba imika keenay dabaysha awalba way jirtay iyo talaaladeedu maxaa shirkan waqtigan Garissa keenay? shirkan kolley waxa uu ahaa horta markii hore barnaamij soo socday sanadkii 2013 ayaa waxa lagu arkay kiisas cudurka dabaysha ah magaalada Dadaab sida aad la socotana dadku way isku gudbayaan marka waxay ahayd mashruuc la soo waday oo hay'adda caafimaadka adduunka ay soo waday marka maanta ayuu suuragalay in wasiirada caafimaadka oo dhan ay isku imaadaan oo si toos ah barnaamij talaal ah hal mar loo wada qaado oo lagu dhawaaqo. Suhayba waad ogtahay talaalku baryahanba meelo kala duwan waa ka bilaaba waqtiyada qaar marka barnaamijka talaalka goorma ayay sheegeen wasiiradu ama ma ka soo baxday goorta meelaha kalena laga bilaabayo? bidano waxa lagu dhawaaqay maanta waxa ay sheegeen in talaalka si rasmi ah u bilaaban doono dalalkan uga bilaaban doona maalinta berri ah oo 15 ah waxa uu socon doona ilaa iyo arbacada oo 19 ah marka waxana lagu beegsanayaa caruur gaaraysa ilaa iyo 900 oo kun ayaa la doonayaa in talaalkan gabi ahaanba la siiyo bidano marka shirki maanta wuxuu ku saabsanaa mashruuc awal hore socday oo laga soo bilaabay sanadkii 2013 balse maanta suura gashay in mataqaana barnaamijka si toos ah loogu dhawaaqo oo talaalka si toos ah loo furo. Suhayba Maxamed Badqas wariyahayaga magaalada Nairobi aad bay u mahadsan tahay. weli waxaan ku jiraa wararka caafimaadka caawa ee jiil ka hor cudurka jadeecada waxa uu dhintay 2 milyan iyo badh adduunka oo dhan baa la yiri
tallaalista ayaa taa hoos ugu riday in 10 kun uu gaadho barnaamijka wadamada qaarna waaba laga sifeeyay baan u jeedaa barnaamijyada laga fuliyay laakiin hadda waxa uu soo noqday gaar ahaan Yurub Romania iyo Talyaaniga ayaa lagu soo waramayaa in 5 kun oo qof ay cudurkaas ku dhacay sanadkiina soo dhaafay codayn ka dhacday haddaba aqalka sare ee baarlamaanka Talyaaniga toddobaadkii hore ayaaba burisay sharciga tallaalka ka dhigay qasab Cabdirashaaq Xaaji Maxamed Siraad Manuela waxa ay keentay wiilkeeda yar ee 8 bilood jiray in khasab lagu talaalo iskuulka caruurta hoose ma tegi karo isagoon sidaan warqad cadayna laakiin hooyadii oo halkan joogtaa way ka cagataalaynaysaa tan waxaan u samaynayaa oo keliya waa mid qasabkuugu ah waxaan ka warwarsanahay waxa ku jira ma aha cabsi culimada saynisku waxa ay soo saareen uu taageersan yahay laakiin waa mid ka joojinaysa caruurta waalidku inay talaalaan waxay dhalisay cudurka jadeecadu kor inuu kaco dawladihii hore waxay qaadeen tallaabooyin talaalka ay khasab ka dhigeen waxaa jirta tiro yaroo dad ah oo aanan doonayn tallaalka ujeeddadayadu waxa ay tahay in 95% ay caqli keenaan sharciguna wuu taageerayaa laakiin dawladda cusub ayaa doonaysa inaan tallaalka qasab laga dhigin laakiin dawladdan hadda la jecel yahay waxa ay doonaysaa meesha inay ka saarto tallaalkan khasabka ah wasiirka arrimaha gudaha Matteo Salvini ayaa leh caruurta ayaan dugsiyada laga joojin sabab tallaal la'aan aawadeed Ariana Fioravanti oo macallimada ayaa go'aansatay ilmaha ay dhashay oo 5 jir ah inaan laga tallaalin jadeecada waxaan taageersanahay in qofku si xor ah u diidi karo tallaalista dadka oo dhan la dul saaray waxaan u malaynayaa in loo baahan yahay in dacwad loo eego ilmo waliba wuu ka duwan yahay ilmaha kale dareenkan cusub ee ka jira dalka Talyaaniga ayaa waxa aad moodaa inuu muujinayo in dadka caadiyihi ka khibrad badan yihiin dhakhtarada dawladda iyo khubarada laakiin culimada saynisku waxa ay ka digayaan tallaabadan inay waxyeeleynayso caafimaadka dalka cudurrada jadeecadu ka mid tahayna ay ballaadhaan badii dhakhtarada caruurta ee waddanka Talyaaniga ayaa doonaya qoysaska inay ku qanciyaan in cabsidan aan salka lahayn ee tallaalka ay joojiyaan markaad wargelintan oo kale aad bixiso way adkaanaysaa inay dadku waxay aaminsan yihiin ay bedelaan waxaan isku daynaa intii karaankayga ah inaanu wax qabanno laakiin malaha waxa loo baahnaa in laga bilaabo baadhistan dugsiyadayada ma aha dhibaato Talyaaniga oo kaliya haysata ee waa mid haysata adduunka oo dhan in markaa la diido waxyaabihii culimada saynisku ay keeneen macnaheedu waxa ay tahay in dib loogu laabto cudurro tallaalku uu daweyn karo siyaasaddu way ka qalafsan tahay daaweynta caawiyo ciyaarahan haddaynu xagga kubadda cagta ka bilowno waxaa sabtidii axadda loo diyaargaroobayaa 9 ciyaarood oo horyaalka Ingiriiska ah Manchester United iyo Watford ayaa madaxa isgelin doona iyadoo tababaraha United Jose Mourinho uu saxaafaddu weydiisay inta jeer uu ciyaarsiiyay Rashford waxaanu ku yiri saxaafadda halkaas ayay kaga dhigtay ciyaarta kale ee halistii waa Tottenham iyo Liverpool iyo Chelsea iyo Cardiff oo Cardiff socdaal sareeraade ciyaartooyga khadka dhexe ee Ruushanka ah Denis Jarveyev ayaa lagu waayay inuu isticmaalay daawooyinka jidhka xoojiya doobinka waxa baadhay hay'adda la dagaalanka daawooyinkaasi 27 jirkan ayaa u ciyaari jiray Valencia Gennady Golovkin iyo Saul Canelo Alvarez ayaa kor u sii qaaday aflagaadada hawada ay isu marinayaan iyaga oo weekendiga wada ciyaari doona Fed hore ayaa loo joojiyay ciyaar Fed oo dhex mar lahayd kadib markii Alvarez uu ku dhacay baadhistii daroogada ee jidhkiisa gaadhiga Beetle-ka ee shirkadda Volkswagen ayaa ka mid ah mid aad looga yaqaan dunida oo dhan xilligii la soo saaray naasiga Jarmalka ayaa ka dhigay mid caan ah laakiin shirkadda soo saartay Jarmalka ayaa sheegtay inay joojin doonto oo ay sameyn doonto sameynta gaadhigan sanadka soo socda Volkswagen ayaa sheegaya inay diiradda saarayso gawaadhida korontada ku shaqeysa una fiican qoysaska Aisha Afrax waa dhammaadka soo saaristii gaadhigan Beetle-ka shirkadda Volkswagen ayaa ku dhawaaqday in ay joojin doonto soo saarista gaarigan aadka loo jeclaa bisha 7 sanadka soo socda gaarigan ayaa soo jiray waqti dheer iyadoo naqshado cusub ay bedeleen midkii barisamaadka akhbaarta joojinta soo saaristiisa ayaana dadka aadka u jeclaa gaarigan niyad jabisay gaariga Beetle ayaa ka dhigan taariikhda warshadeena joojinta soo saarista gaarigan waxay iiga dhigan tahay inaan weynayo qayb aniga iga mid ah After an official speech by Hitler
gaarigan Beetle-ka ayaa la soo saaray kadib markii uu amar ku bixiyay Hitler 1938 wuxuu doonayay gaari fiican oo raqiis ah dadkuna ay iibsan karaan wuxuu caan ahaa 60meeyadii iyadoo uu ka soo muuqday filimada Disney naqshadiisa iyo raqiisnimada ayaana ka dhigtay mid la wada jecel yahay laakiinse walow gaarigan uu ahaa mid aad loo iibsan jiray awalkii hore sanadahan dambe ayaan dadku iibsan shirkadda Volkswagen ayaana ku howlan inay hore u sii socoto kadib markii lagu eedeeyay inay hawada wasakheeyaan gawaarideeda dadka qaar ayaana aaminsan in tayada gaarigan Beetle-ka ay dhimatay 15 sano ka hor adduunyadu dhaqsiya isu beddelaysaa waad aragtaa gawaadhida imika la soo saaray qaarkood waxay ku shaqaynayaan by electric marka noocani waa nooc gaboobay Beetle-ka ah Volkswagen shirkadduna waxay u baahan tahay inay mustaqbalka xaggiisa u dhaqaaqdo balse laga yaabee in gaarigu jiritaankiisu uusan halkan ku ekaan doonin iyadoo dadka qaar ay soo jeedinayaan samaynta mid ku shaqaynaya korontada haddase halkan ayuu ku dhammaaday robert u eeg sida bani aadamka oo dhakhaatiirtu isticmaalayaan telefoonno casri ah oo laablaabmaya waxa inoo haya click saalimiin sharikadda labaad ee ugu weyn adduunka ee telefoonada samaysay Huawei ayaa ku dhawaaqday qorshaheeda inay sanad gudihiisa ku soo saarayso telefoon shaashadiisu laabmayso madaxa shirkadda ayaa waxa uu sheegay in Huawei ay horay ugu sii shaqaynayso waxaa la filayaa in shirkadda Samsung ay iyaduna tartan ugu jirto inay soo saarto telefoon shaashadiisu laabmayso dhib ma ku qabtaa inaad la socoto kaftanada ugu dambeeyay ee internetka qaybta Facebook ee garaadka macmalka Rosetta ayaa baratay in sawirada qoraalka la socda ay turjunto taasi oo ah inay leedahay faham wanaagsan maadaysi oo kaliya maahan waxa ay shirkaddu sheegaysaa inay gacan ka geysan karto la socoshada waxyaabaha aan habboonayn toddobaadkan baarlamaanka midowga Yurub ayaa isku raacay 2 qaanuun oo xuquuqda hal abuurka ah oo cusub oo la isku khilaafay qawaaniintaasi ayaa xoojinaya in kuwa leh bogga internetka inay si adag u hubiyaan muuqaalada la soo geliyo boggooda balse qaar ka mid ah ololayaasha ayaa ku dooday inay ka dhigan tahay dhamaadka waxyaabaha ay dadka adeegsada geliyaan ugu dambeyntii hal waa robot ay shaqaalaha caafimaadku ku tababartaan sida loo daweeyo carruurta robotkan sida aadanaha ayaa loo sameeyey wuxuu leeyahay wadno waa uu oynayaa hadli karaa dhiigna waa uu ka imaanayaa sidoo kale wadna xanuun ayaa ku soo boodi kara balse shirkadda samaysay robotka ayaa sheegtay inay ka niyad jabtay in dadku u arkaan wax laga naxo ugu dambeyntiina caawa waxaan idinkaga tegayaa ninka ugu dheeray adduunka korkiisa Usain Bolt ayaa cadeeyay in aan cidina meel ku qaban kareynin orodyahanka ka fadhiistay tartamada ayaa ku orday meel aanay jirin zero gravity ama cufka isjiid kale waxaanu ka dheereeyay cirbixiyeena hore oo yana la tartamay waxaanu yiri waa caalam kale intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijkii caalamka waa mahadsantihiin sidaas iyo nabadgelyo